dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dowladda Imaaraadka Carabta ku eedeysay inaysan aqoonsanayn jiritaankeeda sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Cismaan Abuukar Dube. wasiir Dube ayaa sheegay in guud ahaan ay qaadaceen qoraal xalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee isku tagga Imaaraadka Carabta, waxaanu ku baaqay in qoraalkaasi ka soo baxay ay raaligelin ka bixiso dowladda Imaaraadka Carabtu. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in xaaladda Soomaaliya ay deganeen isla markaasina isku halayn aysan lahayn marnaba. Wasiirka oo ka hadlaya arrimahaasi iyo arrimo kale ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa iyadoo waxa soo dhimi jiraan haddana muddooyinkii ugu dambeeyay kadib markii madaxda dowladda Imaaraadka u qaabilsan arrimaha dibadda ay u dhaqmeen si aan ka turjumayn walaalnimadii soo jireenka ahayd ee shacabka Soomaaliyeed iyo dowladoodaba waxa galay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyaba waxa galay shaki ah oo inay isweydiiyaan in Imaaraadku la jiraan iyo inay ka jiraan ummadda Soomaaliyeed habdhaqanadoodii tulqaad iyo ilaalinta walaaltinimada ayaa dowladda Soomaaliyeed ku khasbay inay markasta wanaajiso xiriirka labada dal si kasta oo loo tuhmayay oo loo tabanayay oo ay wuxuu muuqdeen haddana qadarinta walaalnimada iyo taariikhda iyo xiriirka ayaa dowladda ku khasbayay in ay ilaaliyaan wanaagga. haddaba maanta waxa dowladda Imaaraadka ka soo baxday warqadda aan kor u soo sheegay midabka kala lahayd oo aan meel ka waafaqsanayn xiriirka diblomaasiyadda qaanuunka caalamiga walaalnimada labada wadan iyo dhaqanka Carbeed ee ku dhisan is-ixtiraamka. warqadda Imaaraadka waxa ka muuqda inaysan aqoonsanayn dowladnimada Soomaaliya oo ay dowladda inkirayaan taasoo abuuraysa in hadalkii halkan laga lahaa dorhaadii ahaa dowladnimo jirto iyo warqadda dowladda Imaaraadka ka timi ay isla socdaan. warqadda waxa ka muuqda in Imaaraadku uu ka rabo Soomaaliya inay noqoto sida Yemen iyo Liibiya oo kale oo ay ka abuurto fawdo iyo barakac waana waxa shacabka Soomaaliyeed ka feejigan yihiin sababtoo ah filimada horarka ah ee fawdada ah ummadda Soomaaliyeed hore u soo daawatay mar labaadna ma rabaan inay filimada dib u daawadaan argagax ee dowlad laanta. warqadan waxa shacabka Soomaaliyeed iyo dowladoodaba u cadeysay tuunkii ay qabeen ahaa saraakiisha arrimaha dibadda Imaaraadku inay qayb ka ahaayeen dibindaabiyadii dalka lagu hayay sanadihii la soo dhaafay oo dhan. dibindaabiyadaas oo si cad uga hor imanaysa qaanuunka caalamiga international lawga waxaana waqtiga loo baahdo iyadoo cadeynteeda wadata soo bandhigi doona hay'adaha ay khusayso waxaana ka dhalan kara sharci jabinta mas'uuliyad. waxa kale oo warqadan ka soo baxday dowladda Imaaraadka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed dib u xusuusisay maalmihii la saxaxay heshiiskii 17 Sebtembar 2020 ee qaar ka mid ah madaxdii heshiiska saxaxay isla maalmihiiba ay u safreen Imaaraadka kolkii ay ka soo laabteenna ay la soo noqdeen iyagoo shuruudo cusub wata mar walbana keenaya caqabado hor leh. dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxay ka fajacsan tahay colaadda intaas leeg ay saraakiisha Imaaraadku u qabaan dadka Soomaaliyeed ee jecel walaalahooda Imaaraatiyiinta. dadka Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan maxay walaaladeen noogu diidan yihiin nabadda horumarka iyo wanaagga annaguba intaa in leeg ayaanu la jecelnahay. shacabka Soomaaliyeed waxaan u cadeynaynaa in hadalka maanta Imaaraadku soo saaray uu yahay mid qarannimada iyo jiritaanka dalka baabiinaya. waxaana muhiim ah dadka Soomaaliyeed inay fahmaan waxaan la hadlayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto inay fahmaan waxa lala damacsan yahay wax dagaal sokeeye inuu dhaco si loo xalaalaysto dhulkooda iyo baddooda oo haddaba muran la geliyay. waxa laga yaabaa in dadka qaar yiraahdaan haddii walaaladeen nagu qaldameen inagu man ka roonaano oo man ka aamusno oo ayaynaanu jawaabin. عجيب هدي ما أنت عن كامسنو دل أو ولا له شقيقة أو له استيد من كودي مرة صدق هذا كتيرين هذه الشيء تقال يقال لا سعي هذا كسعودة there's ongoing violence in مقدشو هذا السعودة بيدي كلية تقال بس صعب هذا مقدشو وكسي دريسة تريتي بين نقطة وكسي دريسة
Soomaaliya dawladda kama jirto way dhamaatay inteeran baa loo guuray waxaan ka soo baxnay 2012 ayay rabeen inay nagu celiyaan dawlad laanta hadallada warqadda ku qoran waxay xusuusiyeen markaan arkay xalay hadallada ku jiray heestii Abwaan Cabdiqays ahaa ku wiirsaad lahayd nolosha waaye aniga awoodkayga iyo waqtigaygu galino waynuhu idaayay waxba iyo lama tarin wax alla wax runtii warqadda ku qornay la hareen ma garanayo aniga awoodkayga iyo waqtigaygu galino waynuhu idaayay waxba iyo lama tarin dagaal iyo qalalaase ayaa ka socda xamar bay yiraahdeen xaaladda Muqdisho way ka sii daraysaa bay yiraahdeen Soomaaliya dawladda kama jirto ay yiraahdeen haddii aan waxaas ka aamusno soo jawaabtu noqon mayso xigmadii carbeed ee oran jirtay as-sukut calaamatu rida aamusku waxa lagu garto inaad raali ka tahay waxaad ka aamustay nidaar qabaanigi reer Siiriyana waa sii fogeeyay aamusko sukuutka wuxuu yiri waxa weeye waa ihtiyaaj iyo wajh iyo alam wuxuu ku aamus hadaad ka aamusta gartaada waxay ka dhigan tahay inaad hoos u dhigtay qabkaagii iyo qiimahaagii taasna haddii aanu Soomaali nahay inaanu qabkayaga iyo qiimahayaga hoos u dhigno dhaqanna uma lihin hidana uma lihin sinaan ayaanu dhaqan u leenahay inaanu bini'aadamka la simannahay